Ku soo dhawaada muuqaal xiiso badan oo aan kaga hadli doono 5 caado oo xun oo shaqadaada kaa cayrin kara ama aad kaga tagi karto. Marka laga soo tago cayrinta shaqada, waxaa jira siyaabo kala duwan oo shaqaalaha shaqada looga cayriyo. Laakiin waxaan kula wadaagayaa sababaha sababa in shaqada laga cayriyo shaqaale badan. Waxaa jira cayrin mararka qaar ku saleysan qofka shaqaalaha ah, qaab dhaqameedkiisa iyo waxyaabaha uu sameeyo. Iyo waxaa jira cayrin ay ka soo go'do ama ku saleysan qofka mas'uulka ah oo kambaniga ama loo shaqeynayo. Lambarka koowaad waa soo daahitaanka xad dhaafka ah. Mar walba oo shaqadaada aad ka soo dibdhacdo ama waqtigii lagu talagalay aan imaanin, waa mar walba oo aad u dhowaanayso in lagaa cayriyo shaqadaada. Weligaa iska ilaali haddii aad tahay qof shaqaale ah inaad shaqadaada aad ka dibdhacdo. Talada ugu wanaagsan ee aan ku siinayo waxay tahay halkii aad ka soo daahi lahayd, adigu soo dheeree oo waqtigii lagu talagalay waqti ka horeeya imow, si aad u muujiso dhiiranaan iyo hawlkarnimo. Dadka badanaa soo daaha waa dad caajis badan, waa dad aan hawlkar ahayn ayaa lagu tilmaamaa. Marka waxay muujinaysaa soo daahitaankaaga iyo inaad waqtiga ku imaan inaadan ahayn qof hawlkar ah oo shaqada loogu talagalay siday tahay uga soo bixi kara. Haddaba, si aad u noqotid qof shaqaale ah oo kambanigaas xubin weyn ka ah oo lagu xisaabtamo oo hawlkarnimo muujiya, haddaad rabtid inaad noqotid, waa inaad waqtigaaga aad ka soo dheeraysaa ilaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ka hor waa inaad timaadaa. Lambarka labaad waa habdhaqanka xun markii aad joogtid goobtaada shaqada. Goobtaada shaqada waxaad u joogtaa inaad gudatid waajibaadkaaga shaqo ee lagu idmaday. Maaha inaad u isticmaasho sidii inaad gurigaaga joogto oo kale. Maaha inaad u isticmaasho sidii inaad joogto meelaha dadku ay fadhiistaan ama hoteelada dadku ay aadaan xilliga weekendiga ama fasaxa lagu jiro. Haddaba waxaan kaaga digayaa markii aad tahay qof shaqaale ah oo qof u shaqeynaya ama kambani u shaqeynaya, inaadan goobtaada shaqada aadan u adeegsan sida gurigaaga oo kale. Kaba soo qaad adoo goobtaada shaqada jooga ayaad waxaad qabsatay hawlo adiga ku gaar ah. Taasi waa khalad markii la fiiriyo sharci ahaan. Waxaa la rabaa markii aad goobtaada shaqada joogtid inaad iska ilaalisid wax walba oo aan wanaagsanayn, aan ku habboonayn shaqadaada ama wax lagu idmaday. Markii goobtaada shaqada aad joogtid, waa inaad waajibkaaga gudataa, waa inaad wixii lagu diray si nadiif ah u qabataa. Taasi waxay muujinaysaa mas'uulnimadaada, naftaadana waxay u horseedaysaa hufnaan iyo dhiiranaan iyo weliba hawlkarnimo. Lambarka saddexaad, xiriirka dadka aad la leedahay oo xun. Haddii aad aqoon sida dadka loola xiriiro ama dadka loola macaamilo, waa caqabad weyn oo shaqadaada kaa cayrin karta mararka qaar. Sababtu waxay tahay waa inaad garanaysid sida dadka loola xiriiro, sida dadka loola macaamilo, sida dadyo kala duwan baad la kulmaysaa, sida loola macaamili karo. Waxaa jira dadyo badan oo ka aradan sida dadka loola xiriiro ama sida dadka loola macaamilo. Waxaa jira dadyo badan oo aan dadka qaabili karin qaarkood. Sababtu waxay tahay dadkoo dhan isku mid maaha, qof walba sibuu wax u arkaa. Marka waa inaad dadka soo dhaweysaa, waa inaad dadka aad la macaamishaa. Dadka xitaa kuu imaanaya maaha, waa dadka aad shaqo wadaagga tihiin ama dadka aad isku meel ka shaqaysaan. Waa inaad isfahmi kartaan oo isku luqad aad ku hadli kartaan. Mararka qaar waa inaad shaqo wadaag noqon kartaan oo aad wax badan wada qaybsan kartaan. Lambarka afraad wuxuu noqonayaa negativity-ga ama mar walba dhinaca khaldan. Mar walba inaad fikradahaaga aad ka dhigto kuwo khaldan ama kuwo aan macquul ahayn. Waxaa fiican inaad mar walba iska ilaaliso inaad noqoto qof negative ah ama qof mar walba dhinaca xun wax ka fiirinaya. Mararka qaar waxaa lagaaga baahan yahay inaad dhinaca wanaagsan aad wax ka fiiriso, inaad fikradaha qaar aad soo dhaweyso, inaad waxyaabaha qaar aad aqbali karto. Maaha mar walba inaad noqotid qof negative ah. Lambarka shanaad waa beenta badan. Ma fiicna inaad tahay qof been badan markii aad tahay qof shaqaale ah. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay waxaad u muuqanaysaa qof aan lagu kalsoonaan karin ama qof aan mas'uul noqon karin. Marka waxaad iska ilaalisaa weligaa beenta haddii aad tahay qof shaqaale ah. Sababtuna waxay tahay qofku hadduu mar been badan yahay, dadku waxay ka filanayaan waxyaabo badan. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday oo ku saabsan caadooyinka xun ee shaqadaada kaa cayrin kara ama shaqada aad uga tagi karto. Fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay,
fadlan nagu soo biir. Mahadsanid.